بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا مركلا يا برنامجكي فلقينتا وراركا قodobada barnaamijkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo bilowday ka hadalka khatar ay sheegeen inay ka soo fool leedahay Turkiga waxaana ay ku andacoonayaan in Iiraan xiga uu yahay Turkiga haddaba tani ma waxay ka macno tahay in Israa'iil ay isku diyaarinayso dagaal ay la gasho Turkiga xog faahfaahsan ayaan idinkaga haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qorshe la doonayo in xukunka lagaga tuuro Netanyahu oo maanta Israa'iil ka bilowday muxuu yahay qorshahan yaase wada warbixin ayaan idinkaga haynaa macluumaadkaas iyo warar xasaasi ah oo arrimaha la xiriira ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimistan ballaaran waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee attaqwa xajan cumra adigoo kala soo xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal maxamed maxamuud cade oo arrimahan la socda ayaa khadka ku jira waan u imaan doonaa maxamed qorshaha la doonayo in xukunka lagaga tuuro Netanyahu oo maanta ka bilowday Israa'iil waxaad inoogu bilowdaa ugu horeyntii warkan ku aadan in Israa'iil ay doonayso in weerar ku qaado Turkiga oo ka bilowday warbaahinta Israa'iil in khabiira oo ku takhasusay qalalaasaha caalamka ka jira ayaa qoraya in Turkiga oo ku dhagan inuu horumarin ka sameeyo xagga militariga xagga siyaasadda iyo xagga rabitaankiisa nuclearka ayuu wuxuu ku sheegayaa oo uu dabada ka riixay madaxweyne Erdogan in laga yaabo in Turkiga uu muteysan doono sida xaaladda Iiraan ta cusub ka jirta shay gool oo khabiir ku ah siyaasadda caalamka iyo maareynta qalalaasaha iyo arrimaha istiraatiijiga ayaa waxa uu maqaal ku qoray wargeyska la yiraahdo Israel Yom waxaana uu sheegayaa markii ugu horeysay Turkiga ayaa si dhab ah oo furan u raadinaya inuu awood goboleed noqdo kadib markii ay burburtay 1922 xukuumaddii ballaarneyd ee Cuthmaaniyiinta waa gartay waa yahay muxuu qoraagu marka ku eedeynaya madaxweynaha Turkiga Erdogan qoraagan ayaa ku eedeynaya xukuumadda Turkiga in siyaasad ahaan iyo taageerada ay siinayso xagga saadka ah ururada argixisada gaar ahaan ururka Xamaas sida Iiraan oo kale ay yeelayso ayaa waxa ay xasiloon darro ku keenaysaa gobolka amnigiisa khatarna ku ah Israa'iil mowqifka istiraatiijiyadeed ee Iiraan ay qaadatay oo ay ku raadinaysa barnaamijka nuclearka inay saameyn ku yeelato iyo cabsigelin Israa'iil iyo inay barnaamij nuclear samaysato ayaa Iiraan loogu dowgalay Erdoganna waxa uu dhawaan ku dhawaaqay sida qoraagan uu sheegayo in si degdeg loo dardargeliyo soo saaridda gantaalo ballistic ah barnaamijkaasna si fiican looga shaqeeyo kadib markii lagu guuleystay tijaabo ay ku sameeyeen gantaal ay tijaabiyeen oo ilaa iyo 560 gaaraya kilomitir uu Turkiga tijaabiyey waxa uu qoraagan sheegayaa Erdogan ayaa si cad digniin ugu siinaya wadamada dariska sida Greek oo kale haddii ayna xaaladda dejin in Turkiga laga yaabo in uu bartilmaameed ka dhigto wadanka Greega Turkiga ayaa hadda waxa uu cagta saaray wadadii uu ku soo saari lahaa agab fara badan oo xagga militariga ay ka mid yihiin diyaarado dagaal oo ay ka mid tahay qaan oo aanan raadaradu arki karin waxaana la filayaa in militarigu ay diyaaradaasi isticmaali doonaan 2029 madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in wadankiisa uunan dib u dhac samayn karin si uu la jaan qaado
awoodaha gobolka ka jira sida Iiraan iyo Israa'iil waa sida hadalku u dhigaya. waayahay ma waxaa jira qorshe Turkigu ku sameysanayo nuclear muxuuse qoraagu arrinkaasi ka leeyahay? qoraagan ayaa waxa uu sheegayaa Turkiga ayaa waxa uu dardargelinayaa mashruuciisa nuclearka oo uu ka wado gobolka Akuyu ee ku yaala koonfurta gobolka Mersin ee kulaala xeebta Mediterranean-ka oo hadda ilaa iyo hal sano ay shaqo ka socotay. xukuumadda Turkiga ayaa ku adkeysanaysa in ay rabto inay sameysto barnaamij nuclear lagu taageerinayo ayada u gaara, taasoo tilmaamaysa in ay rabto inay ka leexato wadiiqada barnaamijka nabadeed ee nuclearka ay u wareegto awood military oo nuclear inay yeelato, taasoo khatar ku ah wadanka Turkiga oo wadadii Iiraan oo kala qaadaysa. intaa waxaa dheer in wadanka Iiraan ay garab ka hesho wadanka Pakistan. waxaa sidoo kale Pakistan ay hore u caawisay wadamada Liibiya iyo Nigeria. intaa waxaa dheer in wadanka Soomaaliya uu Turkiga ku leeyahay xero military oo ka fog in ay dabagal iyo la socosho ku sameeyaan wadamada reer galbeedka. waa sida uu ninka qoraaga hadalka u dhigayo. ninkan khabiirka ah ee ku takhasusay arrimaha maareynta qaralaasaha ayaa ku andacoonaya Erdogan in uu tartiib u isticmaalayo farsamo sida Shiinaha istiraatiijiyada uu ka isticmaalo badda Shiinaha ee koonfureed tartiib ugu durkayo jasiiradda lagu muransan yahay ee Taiwan iyo dhaqanka Iiraan oo kale ayuu waxa uu wadaa siyaasad ah in uu tartiib xadgudubyo ugu sameeyo biyaha caalamiga iyo hawada caalamiga. arrintaasna khatarteeda ayay leedahay ayuu leeyahay ninkan khabiirka ah. waa gartay waayahay Turkiga NATO ayuu ka mid yahay muxuu qoraagu ka leeyahay intaasi ay tahay mid muhiim u ah Turkiga? qoraagan ayaa waxa uu ku eedeynayaa Turkiga oo ka faa'iideysanaysa in ay ka hesho buu leeyahay xasaanad inay xubin ka tahay ururka NATO, ayaduna ay yareysanayso heshiisyada iyo in la difaaco wadanka Turkiga. Iiraan weligeedii allaheed ma helin difaac sidaas oo kale ah, hase ahaatee siyaasadda Turkiga ayaa waxay ka hor imaanaysaa danaha isbahaysiga NATO. ninkan qoraaga ah ayaa waxa uu ugu baaqayaa NATO inay dib u fiirin ku sameyso Turkiga, waxaana uu tilmaamayaa in ay xadgudub ku sameynayso axdiga NATO qodobkiisa 5 wadamada xubnaha ka NATO oo ku xiriirinaya in nidaamka difaaca Turkiga damaanad uu u leeyahay in uu markii la doono oo ka baxo xeerarka lagula xisaabtami karo oo khatar ku yahay xubnaha NATO laftirkooda iyo saaxiibada NATO ay leeyihiin sida Israa'iil oo kale. siyaasadda ururka midowga Yurub ee ku wajahan wadanka Turkiga iyo qoraagani wuxuu leeyahay waxa weeye mid iska hor imaanayso khatarteeda leh, wuxuuna digniin ku bixinayaa inay jiraan siyaasado isku dhacaya oo dowladda Mareykanka iyo Yurub ay u baahan yihiin oo ah in ay Israa'iil u baahan tahay markay aragto waxaas oo dhan inay lahaato jawaab madax bannaan oo istiraatiijiyadeed, taasoo ay rabto inay ka gaashaamato ciidanka Turkiga ku soo qulqulaya waqooyiga Suuriya oo laga yaabo in dowladda Turkiga u suuri geliso inay ka faa'iideysato oo ay khatar gudub geliso Israa'iil. arrimahaasi intayna dhicin ayaa mudan buu leeyahay in laga hortago iyo qoraalkiisa ku soo gabagabiyay. waa gartay marka haddaan ka gudubno waxa laga leeyahay gudaha Israa'iil, warbaahinta Israa'iil ka hadlayso Israa'iil waxay weerar ka wadaa iyo dagaal ka wadaa Gaza, Lebanon, Suuriya, Yemen, weerar waxay ku qaadeen Iiraan. ilaa hadeertaan xitaa khubarada Israa'iiliinta ay aaminsan yihiin wax guul ah ayna gaarin. marka in Israa'iil ay weerar ku qaado wadan ka mid ah NATO ma wax suurtagal ah baa? ninkan khabiirka hadalkiisa lama yareysan karo. Israa'iil xukuumadda ka jirta sida ay khabiirada arrimaha caalamka ku takhasusay daraasinayaan waxa ay rabtaa haddii waxa ay rabto ay weydo
in adduunka uu ka dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka waa sidii hadalka u dhigayaane iiraan dagaalkeedii 12 maalmooda ayay u caalweyday turkiga hadday qoorta gashato waxay noqonaysaa dagaal aad u weyn oo ballaarta waxaana imaan karta in wadamo kale oo dagaalkaasi ku ballaarto waxaa intaas dheer Israa'iil siyaasadda ay wado waxay ku sheegeen khabiirada inay tahay mid qariska tuura cid xakameynaysa ma jirto ilaa iyo inta Netanyahu oo ra'iisul wasaaraha yahay waayahay marka isla arrimahaasi qaybta labaad ee barnaamijka ayaan daawadayaal goor u gudbaynaa oo ku eegi doono qorshe lagu doonayo in xukunka lagaga tuuro Netanyahu ayaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybta labaad ee barnaamijka balse qadar xayisiisa American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda soo gudbinta barnaamij